السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعي ميل كستات شوكان كسر هذا برنامج كافاقلا دي عيارها هذا مالك كستات كلا سعوديان فارتينا يوتيوب كي عيارها لا تستويبه كسر هذا مقال كان حسوا ما أنت كوج الدون وركود بعيار سيبو حانو يقدونا كل ما قدام بعلى تطلع عليه كاترسن كوكا فعوين في كاب كأيانو يقدونا واو كوح كمدا كوح هو وين ياد مودا إنجي بيهامبا لا يعرف تري يولي طبعا كل ما ذا عاول فيلا إن فضل إصدار الدون أيانو إجدنا عاو حجرا كل موين مهمة كوحاوين قاركودا يعاو عيار الدونو وراركاسي وراركلا سبورتي أيانو إجدونا مقالكنا مانتيا. أهلا وسهلا ملك الساتشوت أنا صاحبي كسر دوا وركني سبورتيغ أو فيتسن هديان كوبيلانو كل ماذا على يطلع عيرة كترسن في كابكا كودا كوبدا عكتا مان سيتي أيا وحاي لبي أبدرين ناديجا بيتا بروث أهنا كوحك عيارتيا هير كلابات أي تشامبيونشيبكا كودا كوبدا عكتا مانستير مودين غيب توري عيارتي كسر دلاتي eber taasoo dhigi kare City aad mudeen caadi koonta hasaate ciyaaryahan Mahrez ayaa daqiiqadii 60aad goolka koowaad u dhaliyay kooxda kubadda cagta City horkacayo tababarooda Pep Guardiola waxaana goolkii labaad oo quusay kooxda kubadda cagta Peterborough halkaasi ka dhalay ciyaaryahan Grealish laacib u dhashay dalka Ingiriiska 100 milyan uga soo gateen naadiga Aston Villa ciyaaryahan Grealish ayaa goolkiisa saddexaad u dhalay kooxda kubadda cagta Man City cagayo dhawaca ayaanu dib ugu soo laabtay goromada tani ayaa bilaaw cusub noqon دونتو لاعب كان غريليش وأنا كوحدة كوبدا عكتا سيتي مالتي حدا لعياري دونتيا ناديغا مانشستر يونايتد كولان كاسلو معدري دا مانشستر دابي سوكالتي كوحدة كوبدا عكتا كراسول بليس ايا وحاي لبي هالدينين ناديغا ستوك سيتي kooxda kubadda cagta Stoke ayaad mooday inay dirla soo galeen garoonka haasaata u dambeeyay kooxda Premier League ka ciyaarta Crystal Palace uu maamulo laacibka hore kooxda kubadda cagta Arsenal Patrick Vieira ayaa ugu dambeeyay labi hal uga adkaatay naadiga Stoke City ahna koox ka ciyaarta heerka labaad ee Championship-ka soo kaleetay kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur uu leeliyo tababare Conte ayaa gibihamba laga xiriiray kadib markii ay haleeber jirtay kooxda kubadda cagta Middlesbrough daqiiqadii dheerigeeda extra time-kii daqiiqadii 107 ciyaaryahan Coupon ayaana goolkii guusha ka dhaliyay kooxda kubadda cagta Spurs taniyaal dhigi kara caalada Tottenham ayaad mudaynaysan wanaagsan suntii waxaana jira warar ahayn waxay sheegeen in Conte la filayo inuu iskaato kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur wuxuuna jeclaan lahaa inuu qabto shaqada naadiga Manchester United iminka rajada Tottenham ayaad moodaa inay tahay ay noqotay mid aan runtii la sadaalin karin rajadu ayaa inay ku guuleystaan koobka figaad moodeen calaytay ka badisay kooxda kubadda cagta Middlesbrough koox yar runtii aan la dhihi karin maraba ay ka badin karaan naadiga Tottenham Hotspur inta badan kubadda cagta lama sadaalin karo wax kasta ayaa dhex karo waxa xasuus mudan in haddii aan dib ugu laabno taariikhda in kooxda kubadda cagta Middlesbrough ay tahay kooxdii reebtay naadiga Manchester United waliba garoonka Old Trafford gool kulaad ayaana looga badiyay naadiga Manchester United gool kulaad ku dambeeyay qasaare ciyaaryahan Elanga kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa caaw la balansan naadiga Luton waana kulan runtii looga fadhiyay in kooxda kubadda cagta Chelsea ay dib u soo laabtaan wadadii guusha kadib markii koobka League Cup ay u badisay kooxda kubadda cagta Liverpool tababaraha kooxdaasi Thomas Tuchel ayaa laga yaabaa caawo inuu ka badiyo kooxda Luton si uu wali u sii rajinoodo in kooxda kubadda cagta Chelsea ay ku badiso tani ayaa waxay soo galtay rajo siinaysa inay qaadi karaan koobka weyn FA Cup-ka Tuchel ayaa sheegay runtii in guuldaradii soo gaartay naadiga Chelsea ay runtii mid aan inta badan wuxuu dhimi doonin shaxda iyo qaab ciyaareedkii kooxda iyo ay ku socoto marka waxa la dhigi karaa caawsay dib u soo laaban karaan wadadii guusha dhanka kale kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa soo kalta wajahi doonto naadiga Norwich City waana koox ka ciyaarta Premier League dhanka ka horeynta miiska muddo Norwich iminkana ku jirto meel ugu hooseeyo Liverpool ayaa caawsay la filaya in ay la ciyaarto naadiga Norwich waana kulan kale looga fadhiyo in kooxda kubadda cagta Liverpool ay guul gaarto si ay wali haduu sii yeelato in ay ku guuleysan karaan koobkan iminka loo tartamaya FA Cup-ka kooxda Liverpool ay u soo badisay naadiga Chelsea gool kulaad ton iyo Coyton taniyaal dhigi kara waxay haystaan rajo aad u wanaagsan caawse ka hortagi karaan naadiga Norwich City inkastoo kulamada u dambeeyay la ciyaareen Norwich ay kooxda kubadda cagta Liverpool ay badiyeen waxaana soo kaleetay la filay in tababaraha kooxdaasi Liverpool oo caaw fursad siin doono daayir ka soo baxday akriibna kooxda kubadda cagta The Reds
kulan kale ayaa jira la ciyaari doono ka tirsan Fekerka kooxda kubadda cagta Southampton ayaa waxay la ciyaari doontaa naadiga West Ham waana kulanka caaw kula runtii labada kooxood waxay ku jiraan meel aad u wanaagsan aga kala reynta EPL Sport iyo ciyaar wanaagsan